waxaan leeyahay dhalinyaradu ha iska ilaaliso qabyaaladda hana la olowdo qabyaaladdu waa cudur waxna ma dhisto waxna ma tarto shaqana laguma helo saxdii marka loo bayro taariikhda maanta berberi meel wanaagsan bay maraysaa ilaahay baana mahadda iska leh 30 sano dadku walaalay ahaayeen isku qabiil bay ahaayeen isu adeer bay ahaayeen isu eeday ahaayeen waxba may kala ahayn barbaa waxa lagu wadacani jiray intii isku xaafadiba barnaamijkan oo la magac baxay dan ka hadal waa mid lagaga hadlayo xaaladda dhaqan-dhaqaale ee bulshada Soomaaliland gaar ahaan dhaqamadii iyo caadooyinka aynu hore u lahaan jirnay iyo kuwa maanta la isticmaalo barnaamijkan waa mid lagu wacyigelinayo qaybaha kala duwan ee bulshada Berbera iyo guud ahaan Soomaaliland waxaana soo qaban qaabiyay telefishinka qaranka ee Soomaaliland halkani waa xarunta kutubta lagu kaydiyay ee Berbera oo barnaamijkani ka socdo qaybaha kala duwan ee bulshada ay hormid u yihiin duqeytida madaxda dhaqanka iyo waayeelka Berbera ayaa si qurux badan u dhuganaya mawduuca uu barnaamijkani xambaarsan yahay waxa sidoo kale ka soo qayb galay mas'uuliyiinta degmada Berbera waxa halkaasi hadallo kala duwan oo ay bulshada qaarkood ay ka soo jeedeen ay kaga hadleen taariikhdii kala duwaneed ee dalkani soo maray dhaqanadii uu lahaa waxa halkaasi ugu horeyn barnaamijkani furay agaasimaha telefishinka qaranka ee Soomaaliland Muuse Faarax Jaambir ujeedada ugu weyn ee barnaamijku waxa weeye waa wacyigelin loo baahan yahay in qayb ka qaadataan noloshu maalinba heer bay taagan tahay magaalada Berbera waa muraayadii wadanka siday u eg tahay baa wadankuna u ekaanaya mar walba dadka reer Berbera siday yihiin marka Berbera faan bay leedahay heerar bay soo martay xadaarad bay lahayd shalay waxbay ahayd maanta waxbay tahay berri maxay noqon doontaa reer Berbera shalay sibay soo noolaayeen maanta sibay u nool yihiin dhaqankii shalay ay ku noolaayeen waxbay iska bedelay maanta sidee wixii wanaagsanaa shalay lahaayeen ay dib ugu soo celin karaan sidee waxa xun ay maanta leeyihiin isaga saari karaan sidee doonayaan inay noqdaan mustaqbalka ama sidee u soconayaan nin baa laga hayaa waxa ugu badan ay lahaayeen waa qabyaaladda dhaqamada xun oo dhammi qabyaaladay soo hoos galaan waana xudunta ugu weyn ee barnaamijkan uu ka duulayo odayaal waxgarad duqeyti waayeel haween iyo xildhibaano iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay taariikhdii uu dalkani lahaa dhaqamadii iyo caadooyinkii kala duwan ee ay Berbera lahayd iyo waliba barnaamijkan iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada Soomaaliland iyagoo si weyn ugu mahadnaqay telefishinka qaranka Soomaaliland ee barnaamijkani soo qaban qaabiyay magaaladu way fidaysaa waxaynu u baahannahay inaynu biyo ballaadhin u samayno waxaynu u baahannahay inaynu leydhka qof miskiinaba wuxuu ka dhisanayaa guri meel fog wuxuu u baahanayaa leydhkii inuu gaadhsiiyo waxaasoo dhani waxay ku xidhan yihiin qaabka ay guddoomiyeyaasha guddiyada xaafadaha iyo golaha fulinta iyo golaha deegaanka ee degmadu ay uga wada shaqeeyaan ee ay uga tashadaan ee ay ugu xisaabtamaan xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Siciid iyo sidoo kale duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna ka soo qayb galay barnaamijka ayaa soo dhaweeyay iyagoo bulshadana uga mahadnaqay sida ay barnaamijkan uga soo qayb galeen waxaanay dhiirigeliyeen in mar walba dib loo xusuusto dhaqamadii wanaagsanaa ee aynu lahayn iyo kuwa maanta bedelay iyo sida loo baahan yahay in da'yarta soo koraysa looga sheekeeyo taariikhda uu wadankani leeyahay iyo dhaqamada aynu ku soo caanamaalay bad baynu ilaahayna siiyey aan ku olin gobolada kale dadka reer Berbera waxay ahaayeen bad ku nool bay ahaayeen ee hore originalkii hore waxaynu badda uga faa'iidaysan weynay oo dhalinyarteenu oo mid kastaaba computer iyo science u baranayaayo وبدأ نتو قالوا إلا مركو ساوي اللعب تبع لعيتي وسيتاية وقالوا صباح واعي وين بدأوا قالوا وين برنامج كنا نفري هاي وأدنك هذا دنتي لك هذا عندنا كل هالي قالين إن واحد نقانا هذين ريب بربرنا هاي إن نسحر وهذا الله إن نسحر الفريق نودي منه barnaamijkan waa mid wacyi gelinaya isla markaana bulshada la hadlaya ayaa hore looga soo qabtay gobolka Sanaag waxaana uu yahay barnaamij socon doona oo laga qaban doono qaar badan oo kamid ah gobolada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinkaba Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera